marka aad tahay qof nolosha hiigsi ka leh halganna ugu jira sidii uu u rumayn lahaa riyadiisa waxaad la kulmi caqabado kala duwan. mararka qaar waxaa kaa dhammaan dulqaadka iyo adkaysigaba. waxaa kugu dhici rajabeel marka aad halkaa taagan tahay. haddii lagaaga taariikhiyo nolosha shakhsiyaadka qaar ay ku sugan yihiin, caqabadahaagu waxay noqdaan mid ka fudud sida uu malahagu yahay. qisadaana waxay kugu dhalisaa dhiiranaan iyo karti hor leh. marka aad ku adkaysato hadafka aad aaminsan tahay una istaagto sidii aad u rumayn lahayd riyadaada, dadku siyaabo kala duwan ayay uga falcelinayaan. marka aad sanad, 2 sano, 3 sano aad u halgantid rumaynta riyadaada, muddadaa gudaheedana adigoo aanan gaarin weli halkii aad rabtay, misna weli ku taagan hadafkaaga iyo sidii aad u rumayn lahayd, dadku waxay ka odhan muddadaas oo dhan waxba kuma aadan qabsanin, meelna kuma aadan gaarin. maxaad isu daalin? iska daa, maad waalatay, doqonnimo badanida iyo erayo liita oo la mid ah. iyagu waxa keliya ee ay arkaan waa muddada ay kugu qaadatay rumaynta riyadaada. ma arkaan damaca kugu lamaan iyo dhiiranaanta iyo hamuunta aad u qabtid rumaynta riyadaada. waxay kugu ridayaan niyad jab. mararka qaar adigaa iska shakinaya. niyad jab ayaa dareemaysaa, balse ma ahan in aad dheg u dhigtid talooyinka taban ee kaaga imaanaya dadka khaldan. ma garan karaan dareenka ay leedahay inuu qofku meel hiigsado. ma garanayaan dareenka ay leedahay inuu qofku aamino in ay ku jirta awooddii uu ku gaari lahaa hadafka uu hiigsanaya. sababtoo ah weligood nolosha meel kama ay hiigsan. mana garan karaan dareenka ay leedahay inuu qof u istaago hadafka uu aaminsan yahay. hana ka filan in ay ku aaminaan amaba ay ku fahmaan. hana u joojin. haddii aad u dheg u dhigi waydad hadallada liita ee kaaga imaanaya dadka kale, waa hubaal waad gaari halka aad hiigsan. guuldarrada dhabta ah waa marka aad ka kici waydid meesha aad ku dhacdo, horena u sii socon waydo. balse inta aad hore u socoto waa hubaal inaad guulaysan. horey u soco, horey u soco, horey u soco.